waa kuma shiishyahankii dhulka dhigay in ka badan 700 oo askari oo ah ciidamada gaarka u tababaran ee Mareykanka. Waa wiilkii la holin waayay ee lagu yeero Juba, kaas oo ah Ciraaqi Carabi Muslim ah oo reer Baghdad ah. كيف قتل قناص بغداد 700 جندي أمريكي؟ sidee ayuu ku dilay in ka badan 700 oo askari oo Amerikaan ah. waa ninka ruuxay qalbiyada ciidamada gaarka u tababaran ee Mareykanka, kaas oo ay ka leedi waayeen had iyo habeenba ilaa heer ay Mareykanku gaarsiiyeen inay madaxiisa duldhigaan ciddii soo disha ama soo sheegta in la siin doono adduun dhan $40,000. من يبلغ عن جوبا له جائزة قدرها $40,000 أمريكي. balse waxaa la yaab leh isaga laftigiisu markii uu maqlay bayaanka Mareykanku duldhigay waxa uu ka jawaabay inuu siin doono askarigii madaxa kor ula kaca ee Amerikaan ah $100,000. Juba, shiishyahankii reer Ciraaq. magaca Jubana waxa uu bixiyay Mareykanka xirfadiisa shiish ee yaab kale darteed. markasta uu dilo askari Amerikaan ah waxa uu ka tagaa hal qashar oo xabadda uu riday, taasoo uu la jeedo heshiiskiisu marnaba dhulka u dhicin bartilmaameedkiisana uusan qaloocan. جوبا العراقي حسب البنتاغون 14 Juba bilowgiisii waxa uu dilay 10 saraakiisha u sareysa ciidamada Pentagonka Mareykanka. howlgalkiisii ugaarsiga ciidamada Mareykankuna waxa uu bilaabay markii ay ciidamada Mareykanku weerareen 2003 ilaa 2006 Ciraaq. sheekooyin la yaab leh iyo filimaan ayaa laga sameeyay halyeygii reer Ciraaq ee Juba, kaas oo dilay dhammaan shiishyahanadii ugu fiicnaa ciidamada Mareykanka ah. waxa uu ciidamada Mareykanka ee joogay Ciraaq u jeexay calaamad argagax leh oo aysan weligood arag. xitaa haddii ay galaan meel kasta oo dhufayskeedu adag yahay, waxay xabadiisu dibadda soo dhigtaa madaxyada askarta. argagaxa iyo cabsida ku dhacday militariga Mareykanku waxay ku tilmaameen Juba inuu yahay arwaax aan la arki karayn. الحكايات كما لو كان ظاهرة محيرة يتداولها جنود الولايات المتحدة بخليط من الخوف والإعجاب، فوصف بالشبح الغامض والرجل المجهول والبندقية الحاذقة والقدر العراقي. nin aan la garanin meel uu ka jiro iyo qorigiisa ama kaaga dhaliyay. tiknoolajiyad kasta oo ay ciidamada Mareykanku adeegsadeen waxay awoodi waayeen inay xitaa arkaan hal mar meel uu ku sugan yahay. waxay kaloo waayeen xitaa aqoonsi yar oo uu reebo. waxay u sameeyeen naanaysyo badan oo ay ka mid yihiin ninka saaxiibka la xabad kaliyaalaha aan waxba dhaafin. xabad kasta oo uu ridaana waxay asiibtaa bartilmaameedkiisa ah madaxyada militariga Mareykanka, kaas oo u diiday ciidamadu inay dhinac u nuuxsadaan. meel kasta oo ay ku xidheen kaamarad xitaa umaysan suurtagelin inay helaan meesha uu xabadda ka soo ridayo Juba. waxay kaloo ku micneeyeen inuu doorto halka ku habboon iyo shakhsiga ku habboon xabadiisa. xitaa hal xabo ayuu ku dilayay 4 askari. ويكشف للشعب الأمريكي كذب ادعاءات حكومته. ciidamada Mareykanku xilliga shacabka Mareykanka been ayay u sheegeen, balse gadaal markii la ogaaday dhibaatada aan la dabooli karin ee uu ciidamada Mareykanka gaarsiiyay, waxay ku dareen liiska labada shiishyahan ee dunida aan hore loo arag. intaadan neefsan waxaa ku dul taagan xabadii dhimashada. قبل أن يشهدوا رقصة الموت الأخيرة. عبد الفتاح محمد عبد فوقان رجل